علي جودلاو حسين شخصية مدة دير اسكفدية كرسي هيرشابيل isla markaana aan isbedel marnaba aan ka keenin deegaanadaasi waxa uu cadeystay inuu lacag fara badan uu ka sameeyo qabaa'ilka ka jira qaybo kamid ah deegaanadaasi taa oo la micno ah in hay'adaha uu ugu sheekeeyo in dagaalabeeleed uu ka jiro deegaanada maamulkaasi dagaalabeeleedkaasi ayaa waxa loo soo diraa lacag aad u fara badan si uu dagaalabeeleedkaas u sii xaliyo dagaalka meeshii uu ka sii xalin lahaa waxa uu iibiyaa hub beelaha ayuu hubabkiisa ugu dhiibaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen isbaarada ku taala Ceelcadde ayuu maalin kasta lacag malaayiin ah oo ka helaa waxaana u shaqeeyay qaar ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidan isaga darajo uu dhiibtay inta uu joogay Hirshabelle dib ayay u laabatay Hirshabelle waxa ka dhacay dagaal beeleedyo waxa lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya hal maalin mu uusan go'aansan in uu tago goobaha furunta ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay joogaan oo ay dagaalka ay kula jiraan cadawga argagixisada al-shabaab oo dhibaato ku haya dalkeena waxa la isku dilayaa xadka gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan marnaba muusan isku dayin in uu xaliyo isagoo madaxweynaha maamulka Hirshabelle ah marnaba ma u suuragelin in uu tago magaalada Beledweyne tagitaankiisa Beledweyne marnaba waxa ay tahay in uu ka cabsado mar waliba tagitaanka magaalada Beledweyne oo beeraha halkaasi degaa ayuu ka cabsanaya sababtoo ah isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabargeed waxay ku heshiiyeen in kaliya la lugooyo reer Hirshabelle ayaa ka hartay gebi ahaanba maamul goboleedada horumarka ballaaran ku tiigsanaya galmudug haddii aan lahayd horumar ayay sameynaysaa inkastoo Axmed Qorqor isagana dhabarka ugu fadhiyay galmudug dagaalka lagula jiro cadawga argagixisada Axmed Qorqor ku dhiisa oo uu ka gaabinaya Jubbaland si la mid ah dhibaato ayaa haysato oo Axmed Madoobe ayaa liigaya oo Jubbaland inay horumar sameyso ma rabo koonfur galbeed la mid gebi ahaanba madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu jeebka gashtay lacagtii loogu talagalay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya taasi oo la micno ah in maamul goboleedyadu qaarkood ay yihiin kuwa madaxdu wax waliba iyaga jeebka ay gashanayaan saameynta ugu xoogansa waxay ka jirtaa Hirshabelle sheekadeena biyadhaceeda waa Hirshabelle Koko Buule waa gabar youtuberad caan ah isla markaana baraha bulshada saameyn ku dhaxleh waxay sameysay wax xitaa uu ku dhiiri waayay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo kaliya ka jecel in uu ceel u qodi lahaa dadka dhibaatooyinka biila'aanta haysata in uu xitaa ceel u qodi iska daayay waxa uu mararka qaarkood ka barakiciyaa guryaha ay deganaayeen oo beerahooda ayuu xoogaa oo mar waliba waxa uu isku dayaa cidii la hadasha xitaa inuu xabsiga u geeyo wasiirada maamulka Hirshabelle waxa uu gebi ahaanba uu ku soo koobay hoygiisa in ay ka cunteeyaan xildhibaanada Hirshabelle meeshii iyaga la xisaabtami lahaayeen madaxweynaha maamulkaasi waxa mar waliba dhibaato joogto ah u geystaa oo mushaarkooda xitaa uu ka joojiyay in ay qaataan Cali Guudlaawe Xuseen Koko Buule aad ayay u mahadsan tahay dadaal badan ayay u sameysay dadka reer Hirshabelle madaxweynaha maamulka Hirshabelle waa uu garan waayay maxaa keenay inuu garan waayo waa shakhsi aan aqoonin ixtiraamka bini'aadanimada waa shakhsi aan aqoonin horumar waxa uu yahay waa shakhsi aan aqoonin marnaba inuu isbedel uu sameeyo waa shakhsi kaliya jecel in lacag isaga jeebkiisa ay gasho aana jecleen in lacag ay ka baxdo Hirshabelle waxa soo maray Cali Cabdullaahi Cusuble oo madaxweynihii hore ee maamulkaasi ah isbedel yar oo xogaa neecaaw ayaa ka jirtay Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare xogaa uu ka roonaay Cali Guudlaawe laakiin Cali Guudlaawe Hirshabelle meeshii ay duuli lahayd qoolay baalasha laga rifay oo kale dhulka ayuu dhigay madaxweynaha maamulkaasi beelaha deegaanada maamulka Hirshabelle gaar ahaan dadka ugu qabka weyn deegaanadaasi waxa uu u qoray mushaaraad isagoona cidii la hadasho oo si weyn maamulkiisa u dhaleeceyso waxa uu afku gelinayaa lacag si ayna qaylada aynu ugu badin tanna waxay la micno tahay madaxweynaha maamulkaasi in uu mar kale uu doonayo in waxa uu doono uu ka sameeyo Hirshabelle deegaanada Hirshabelle ayaa waxay ku sii socotaa xaalad aad u adag xitaa deegaanka Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ka jira dagaal beeleedkaasi oo sababay in xitaa macallin dugsi lagu dilo
madaxweynihii dhammaa ma uusan isku dayin inuu ku baxo arrintaasi. beelo kale ayaa ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxba muusan ka qaban deegaanadii dhawaan al-shabaab laga saaray ee Hirshabeelle ka tirsan oo masaajidda Cali Gaduud ka mid yahay. horumar ma uusan sameyn, waa uu taagan yahay. sababtaasi oo dhan waxaa iska leh madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaabe Xuseen. cali Guudlaabe Xuseen waxaa u shaqeeya koox isaga u gaar ah oo dhanka meediyaha u qaabilsan. kooxdaasi ayaa mar waliba buunbuuniya isla markaana sheega waxa uuna ahayn, taa oo ah dhibaatada ugu xooggan ay haysato Hirshabeelle. aaway odayaasha dhaqanka Hirshabeelle maxay u damqan la'yihiin oo in ay la hadlaan Cali Guudlaabe oo Hirshabeelle tallaabo ay samayso samaxay ku diidan yihiin. xildhibaano ayaa laga soo doortay, xildhibaanada Hirshabeelle laga soo doortay dhammaantoodba way hurdaan. waxaa maraysa leerta caafimaadka lacagta uu soo dirayo Cali Guudlaabe Xuseen. Cali Guudlaabe ayaa lacag dhammaantood jeebka ugu shubay, lama xisaabtami karaan. aaway xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle Cali Guudlaabe jeebkiisa gadaal ayay ku jiraan. taasna waxay ka dhigan tahay in maamulka Hirshabeelle uu yahay maamul curyaan ah oo curyaamiyey hogaankii ugu sarreeyay. xitaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ma hadli karo. dhibaatada ugu xooggan ee hadda Hirshabeelle ka jirta ayaa taasi ah. ciddii hadasho oo danta madaxweynaha laga waayana hawada loo diraa. taasina waxay ka dhigan tahay in Hirshabeelle allo u gargaar ay tahay arrinkeeda ka jirto. dhibaatada kale ee jirto waxaa hadda wajahaya qaybo ka mid ah deegaankaasi abaar aad u xooggan oo deegaanada hoostaga amba tuulooyinka hoostaga magaalooyinka Jowhar, Mahadaay, Warshiq iyo deegaano kale waxaa ka jira abaar aad u xooggan. abaartaasi ayaana waxay tahay mid saameyn fara badan dhalisay. muxuu wax uga qaban lahaa hay'adaha kala duwan ee isku dayay in hay'adaha kala duwan waxa uu gebi ahaanba Cali Guudlaabe u diiday inay booqdaan deegaanada qaar. degmada Warshiq ayaa hay'ad isbitaal ka furtay oo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxa uu gebi ahaanba u diiday in ay hay'adaasi isbitaalkaasi ay ka sii shaqeyso maadaama isaga akoonkiisa ay u birqi weysay ama lacag ay ku shubi weysay. marnaba muusan isdhihin danta shacabka sidee horumar ay ugu sameyn karaan. dhinaca kalena daawadayaal wararka kale ee Jubbaland ka imaanaya haddii aan eegnana Jubbaland waxay la wareegtay qaybo ka mid ah gobolka Gado, iyadoona gobolka Gado wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya ay sheegayaan in xaalku uu hadda u degan yahay. ciidamada maamulka Jubbaland ayaa Baardheeri iyo deegaano kale oo beled xaawi ay ka mid tahay hadda ku sugan, iyadoo mas'uuliyiinta maamulkaasina uu ugu horeeyay Maxamuud Sayid Aadan maalmihii ugu dambeeyay uuba ka shaqeynayay sidii ciidanka Itoobiya ee iyaga u shaqeeya ay ula wareegi lahayn deegaano fara badan. Maxamuud Sayid Aadan wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka aan dowladnimada jecleen. waa shakhsi si weyn ugu caanbaxay musuqmaasuq amba corruption, waxaana uu mar waliba uu ka faa'iidaa dadka sida weyn uga soo horjeeda. waa uu xirtaa lacaga ayuu ka qaadaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland, isagoona beesha uu isaga ka soo jeedo mar waliba dhibaato joogto ah ku hayo. gobolka Gado maamulka Jubbaland maxay mar hore ugu soo jeesan weysay? sababta hadda dowladda federaalka Soomaaliya markii ay isku dayday inay horumar ay sameeyaan reer Gado maxay markan baalasha ugu rifayaan maamulka Jubbaland? Axmed Madoobe iyo xulafadiisa ayaa mar waliba waxay jecel yihiin inay tallaabo iyaga dan u ah ay qaadaan. dhinaca kalena daawadayaal Puntland wali waxay sii wadaa dagaalka lagu baacsanayo kooxaha argagixisada ee ka jira qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. deegaanka Calmiskaad maalmihii ugu dambeeyay waxaa lagu baacsanaya shakhsiyaad ka tirsan ururka argagixisada ee Daesh. maamulka gobolka Bari ayaa hore waxay u sheegeen in Calmiskaad laga saari doono dhammaanba argagixisada meel waliba ay kaga sugan tahay. dooni hub u waday ayaa la qabtay oo ururka Daesh la sheegay in Yemen looga soo qaaday lana doonayay in la geeyo Calmiskaad. hase ahaatee ciidamada booliska ayaa wax ay qabteen doonidaasi iyagoona sheegeen in baaritaano weli ay ku socdaan. saraakiil sarsare oo Daesh ayaa isku soo dhiibay ciidanka, waxaana tani u muuqanaysaa in dadaalka Puntland uu weli uu soconayo ee kula dagaalamayso ururka argagixisada ee Daesh. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyana waxa uu mar kale dadaal uu ku bixinayaa in isbedel uu dalka uu ka dhaco oo ku aadan xaaladda guud ee haatan dalka uu ku jiro. xasan sheekh maxamuud doorasho qof iyo cod ah ayuu weli ku dadaalayaa, laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya
ayaa waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ee dalka aysan ka dhici karin isla markaana madaxweynaha yoolkiisa ugu weyn uu yahay muddo kororsi. durbaba markii uu cabdiraxmaan cabdishakuur soo hadlay, axmed macali fiqi ayaa u soo jawaabay, iyadoo axmed macali fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu mar waliba shakhsiyaadka dowladda federaalka Soomaaliya eedeynta u jeediyo si toos ah ugu jawaabo. tanna waxay u muuqanaysaa in axmed macali fiqi uu isku bedelay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay daawada subscribe noo saar janaalka, like iyo share commentigaagana waa noo muhiim. waa mahadsantihiin daawada, nabadgelyo.